الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سقالية طبنات كتاب كأني عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن القيم رحمه الله. الصبر عن المعاصي أعظم ما يعين عليه قطع المألوفات. معاصيدا إن لغا صبره waxa ugu weyn oo macsiyad daynteed kuu caawin waxa weeye shayga naftaadu ay qabatidnimay ood wax badan samayn jirtay inaad goyso, saasaad macsiyada ku dayn kartaa. shaygaa qadci ku sameeyo go. dayib, waxyaabaha marka qofka binu aadamka la soo gudboonaada laba shay baa loo qaybiyaa. shay uusan isagu awood u lahayn, maa laa sunca liaadamiyin fiih, yacni waxaan qofka wax awooda adigu uma lihid, ikhtiyaarna ma ahee waa wax ilaahay kugu keenay, xeelad aad kaga baxdana dee adigu ma lihid, sida geeri ku timid oo kale reerka kugu timid oo qariibkaagii ku dhacday iyo wixii lamid ah. arrintaa waxna binu aadamka xaggoodu kaaga iman. marka labada arrimood wixii alle xaggiisa kaaga yimaada bay dadku afar meelood bay ugu qaybsamayaan. qolo waxay tegaysaa maqaam alcajzi, marka inay ka cajizaan inay ku sabraan oo jazac, argagax iyo sheegasho iyo tasakhud oo cadho ah wixii ku dhacayba way ka xanaaqsan yihiin bay la imaanayaan. sidaa dadka sameeya waxaa la yidhaahdaa wa aqalu nnaasi caqlan wa diina, waa dadka xagga caqli iyo diin ahaanba ugu liita ugu hooseeya. maxaa jira wax ilaahay keenay buu qofkani jirkiisa u jeexjeexayaa oo dharkiisa u jeexjeexayaa, isu dharbaaxayaa, maxaa aniga kan iga dhigay, maxaa aniga ilaahay waxaan igu samayn, ilaa aan aragnay kuwa badan oo ka sheegan ilaahay muxuu sidan ii yeeli aniga dhahay, oo arrintii raalli kuma ah, ma ogola. taasi waa dadka ugu caqli yar iyo diinba ugu yar weeyaan. maqaamka labaad waa maqaamu sabri lilah, waa qof ilaahay wuxuu ku keenay al-inqiyaadu, wuu u hoggaansamaya, istislaam ayuu samaynaya, waa hoggaansamay, waa isdhiibay, ilaahay subxaana wa tacaala isu dhiibay waana ku sabray. kan saddexaadna waa maqaamu ridaa, raalli buu ku yahay, huwa aclaa min maqaami sabri, kanaa kasii sarreeyaba. sabir keliya ma ahee waa raalli buu ku yahay waana ku sabray. ilaahayow waxaad igu samaysay ee waxa igu dhacay raalli baan ka ah waanad ku sabray. taasna waa darajo kaleoo ka sarreysa midii sabirka. darajada afraad ee ugu sarreysa waa maqaamu shukri baa la yidhahdaa, wa huwa aclaa min maqaami ridaa, wuuba kasii sarreeyaaba isagoo kani. waa maxay? qofkii shaygii ku dhacay waa ku sabray, raallina wuu ku yahay, intaa kaliya mehe waana ku shukrinaya rabbi subxaanahu wa tacaala ayuu usii mahad celinaya. marka dadku markii wax ku dhaco afartaa gruub bay u qaybsamay. gruubka u liita uu yahay gruubka aqbali waayey ama diiday, gruubka u sarreeyaana waa gruubka kuba shukrinayaba wixii ku dhacay. ayib, waxyaabaha kaloo binu aadamka la soo gudboonaada waa waxaa dadka xaggooda min jihati aadamiyin mithli, isagoo kale qof adoo kalea wax kaaga yimid, sida caydii, sida dilkii, garaacii, waxyaabihii laguu geystay, taas weeyaan. ayib, taa marka la fiiriyo isagana afartan meelood aan soo sheegnay way leeyihiin. afartaas baa afar kale lagu daraya. afartii hore maxay ahayd? qof baa wax kuu geystay. hadda inaga qof walbo inaga mid waxaa laga yaaba inuu ruuxu u geysto, wuu ku caayaa, waxbuu kaa sheegaa, waa ku dulmaa, waxbuu kaa qaataa. kow, marka inuu qofi qaadan waayo wixii qorigiisu la soo baxayaa, isaguna wuxuu leeyahay ruuxa iska dhicisee bay ugu samayn. ayib, iskaasaa laga yaabaa inuu dilo qofkii muslimka, wax yar kugu sameeyay adigu inaad dishaaba suuragala. waa qofka ugu caqli yar ugu din yar. qofna waa ku sabraa, qofna raalli buu ka noqdaa, ilaah wadaa ii qadaray, qofna waaba ku shukriyaa, yaa rabbi maxaa jira, dembigaagiibuuba la wareegayaa qofkaas. afartaa waxaa lagu darayaa marka afar maqaam oo kalaa lagu sii darayaa oo qofka bini aadamka wixii kaaga yimaada. maqaamu lcafwi wasafx, inaad iska cafido ood ka jeedsato wixii, waabad cafiday, waad ka jeedsatay, farahaad ka qaaday. maqaamu salaamati alqalbi min iraadati tashafi walintiqaam, yacni inaad ka aaro gudato qofkan ood iska dhiciso oo aad maaragtay adiguna ka soo gudsato baad iska dayso, qalbigaagiiba waa ka nabadgalayba. ayib, iyo maaragtay qofkii oo arkaya maqaam القدر وأنه كان
يعني إنه أركو قفكي كذلميي أو دبكن كوسميي بواحد آمنيسا الله سبحانه وتعالى با كو قدر مركو هوري qofkan daalimka gacantiisa una hadda hawsha lagu fuliyey allana kuma dulminin wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid waxaa ugu sii sarreeya afartan waa maqaamu lixsaan isaguna ixsaan waa maxay alixsaanu ila lmusii qofkii dhibka kugu sameeyey baabad wanaag ku samaynaysaa isagu xumaan buu kula qaabilay adna wanaag baad ku qaabilaysaa kan wuxuu yihi fii hada almaqaam min alfawaa'idi maa laa yaclamuhu ila allah marka ilaahay unbaaba og haddii marka addoonku uu ku guulaysto arrimahan iyada hadduu ku guulaysan waayana qofka fiican waxaa la yidhaahdaa meel hoose naftiisa raalli ugama noqdo marka ilaahay subxaanahu watacaala si uu inoo cafiyo aynu dadka inaguna iska cafino waxaa inooga imaanayaa ajirna waynu kororsanaynaayo waxbaa la inooga qorayaa ilaahayna subxaanahu watacaala cafigiisa ayaan ku helaynaa wasala allahuma wasalam calaa saxbi ajmaciin